Guddi odayaal oo loo saaray shaqaqadii ka dhacday degmada Xudun ee uu ku dhintay taliyihii saldhigga Bileyska degmada Xudun Taliye Cismaan Maxamuud Saalax ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax ugu dhamaadeen iyo halka wax u marayaan. Waxaana ay yiraahdeen sidan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم goobtan joogna waa dawladda hoose ee degmada Xudun xarunta dawladda hoose ee degmada Xudun maanta waa 10kii bishii 11aad 2021 halkan waxa isugu yimi odayaal kala duwan oo ka yimi deegaano kala duwan oo ka kooban ugaadhiyahan weyne waxaanu ka mid nahay odayaal guddi ahaa oo sagaal ahaa oo laga soo diray shirkii Dibshabeel goob uu Garad Saleeman fadhiyay haddana odayaashan waxaana loo soo diray dhacdadii naxdinta lahayd ka dhacday degmada Xudun gudaheeda oo ku dhintay taliyihii saldhigga booliska degmada Xudun askar kalena ku dhaawacantay shaqaqadaas oo dhex martay dadweyne geedooday oo Xudun iyo deegaanka ay xukunto ka koobnaa iyo ciidankaas oo isaguna markaa nabadgelyada sugayay sida awgeed maadaama garaadka iyo ugaadhiyahan ay noo soo xil saareen hawsha inaanu dhamayno horena looga gudbiyay saxaafad hore oo dad khaasa target laga dhigayo la leeyahay hebel ba arinta geystay waxaanu rabnaa arinta xaqiiqadeeda been fakaturnimo gaadhay Soomaaliya tira laakiin waxaanu leenahay arinta xaqiiqadeeda aan rabnaa inaanu halkan ka jeedino oo saxaafadda gudbino cid kasta oo ay khusaysaa dhaga furan ku dhageysato haddaan guddigaanahay waxaanu soo saarnay go'aan hawshan waxay nagu qaadatay muddo ah 22 maalmood aanu joognay degmada Xudun kooyla taka casho baaris iyo inaanu ka sal gaadhno iyo inaanu boogdame soo kicin ka shaqeynayne sida awgeed waxaan halka ka akhriyaa qodobada warqadda sida aad la wada socotaan 27 bishii 9aad 2021 iska horimaad ka dhacay degmada Xudun ee gobolka Sool waxa lagu dilay taliyihii saldhigga booliska ee degmada marxuum Cismaan Maxamuud Saalax sidaas oo kale waxa halkaas ku dhaawacmay askar dhimasho iyo dhaawacba waxa u geystay shacab gadoodsanaa iyo booliska oo dagaalamay qodobka labaad ma jirto cid khaas ah oo la garanayo oo iyagu si gooni ah dhibtan u geysatay oo loogu eedeyn karaa qodobka saddexaad 9 nin ee arintan hore loogu eedeeyay ma jiraan wax u gaar ah oo ay gooni u geysteen dil iyo dhaawac midna qodobka afraad geeridii taliye Cismaan Maxamuud ee uu kacdoonkaas sababay waxa aanu ku soo dhamaynay sulux raali laga wada noqday haddana ma jirto dhibaato geerida marxuumka ka taagani qodobka u dambeeya shanaad sidaas awgeed dawladda Soomaaliland waxa aanu ka codsanaynaa inay agoontii uu taliyuhu ka dhintay daryeelaan oo ay xaq mariyaan iyo inay askarta dhaawacan ay daaweyntooda iyo daryeelkooda daboolaan wabillahi tawfiiq odayaasha warqadda saxeexay guddiga waxa gudoomiye waxa Caaqil Cabdirashiid Cabdi Cilmi Aabi Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalu إن كسدحان أوديك سدحات عاقل حسين آذن عبدي حسين آذن عدي أوديك أفراد أودي عابي يوسف عبدي أوديك شناد أودي محمد نور موسى أوديك اللحاد أودي أحمد شريد دودي أوديك التضبات أحمد جامع فارح شوتي إن أوديك سيدات جبريل محمد حاج صالح أوديك السغالة عبد الرحمن أحمد يمل ويسوق هذا نجمقن سجالك وديستيد داسن جوبيشو كوهين وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله هذا نوع بسم الله الرحمن الرحيم وحمي الله سوري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركو وحو أها انت ورقد كوكو ابني حبنتي حبهيها نوع هيدا يؤخريه وحان نوه هليه نمانكا سجالكا إيوه خيركي أي كدشان انت بوحا لمريي دار ضد صدن يا أفر نن
ka kooban oo ay ka mid yihiin nimankaas waxaa la mariyey dhaar oo ah reerka la yidhaahdo maxamuud cumar gole ugaadhyahan iyo dad kaleba ku dhan yahay oo xudun ah baa intaa lagu dhaariyey dhaartaa waxaa soo qortay oo yeelay marxuumka dhintay ninkii dhalay ee la odhan jiray maxamuud saalax oogle iyo qoyskiisii sidaas baa lagu kala qancay dhaartaasaa lagu kala qancay ninkii wiilka dhalay taliyaha dhintay dhalay iyo qoyskiisiina ku samreen qoyskii wax loo sheeganayeyna lagu waayey oo ay ka dhaarteen sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa inaanay lahayn oo ka imanayn madmadow dambe iyo wax isu sheegasho dambe iyo haddii allaba kuu ron yahay ay tahay hawl soo dhammaatay ciddii ay khusayso oo arrintaa wax kale kaga jirta waxaanu u sheegaynaa arrintaa tulnimo iyo qabiil ahaan iyo odayaal ahaan iyo cuqaashii reerka annagoo ah inaanu gallay dhammaynay caawa wax laysaga haystaan aanay jirin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdulaahi maxamed kaarshe TV-ga qaranka degmada Xudun.